wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye ayaa habeennimadii xalay waxa uu soo gaaray dalkani Koonfur Afrika iyagoo ay soo dhaweeyeen safaaradda Soomaalida ee dalkani Koonfur Afrika ee fadhigooda uu yahay magaalada Pretoria caasimadda South Africa. sidoo kale waxaa soo dhaweeyay wasiirka ururka dhalinyarada ee Somali National Youth ee dalkani Koonfur Afrika gudoomiyahooda Bashir Goobe. dhanka kale wasiirka waxa uu la hadlay warbaahinta isagoo sheegay imaashihiisa inay ka dambayso inuu u gogol xaarayo madaxweynaha oo dhawaantan la sugayay inuu dalkani soo gaaro. madaxweynaha uu imanaya iyo wafdi la socda markaa insha Allah inaan dadka Soomaalida la kulano ka tacsiyeenay dadkii cadaalad darrada u dhintay dowladda South Africa kala hadalo dhibaatooyinka dadka Soomaalida ay mudan yihiin oo loo geystay waxa muhiim ah in la ogaado dadka Soomaalidu inayna ahayn dad halkan u soo shaqo tagay laakiin ay yihiin dad dhaqaalaha wax ku kordhinaya oo business u yimi oo lacagtooda keensaday oo lacagtooda gelinaya waddanka South Africa oo waddan Afrikaana oo weyn oo wanaagsan inuu yahay wuxuu shirku ku saabsan yahay uu tiimku yahay dumarka afrikaanka sidii loo xoojin lahaa annaga kolleyba Soomaali ahaan hooyo iyo walaal iyo dumar waa waxa halkan soo gaarsiiyay marka waa muhiim inaan ka qayb galo. haddaba tan iyo markii ugu horeysay ee la furay safaaradda Soomaalida ee dalkani Koonfur Afrika waxaa soo hagaagayay xiriirka Soomaaliya iyo dalkani Koonfur Afrika iyagoo ay imaanayeen madax kala duwan oo ka socota dowladda Soomaaliya. dhan kastaba ka eega waxaa la dhihi karaa waa halkii ugu sarreysay ee xiriirka South Africa iyo Soomaaliya ay gaaraan. Cabdixakiin Ibraahim TV-ga Somali Channel Koonfur Afrika Johannesburg.